هذا الجواب تورق لا تورق بان كفر معي ورق ساكا لحدي صبح لما ساعات صبح تقدر هذه أروت دجال باخبر عمي دجال كاس دجال أول أسبوعها ماذا حالاني جاي خدع جاي ماذا حبورها كسر يلاني عجن هرول لاني ما يفهم دجال كاسي لكن حاجة بورها بورها جاي ما بدم يعني ودن كتقرأ جدا شو ودن كتقرأ عندما بدون في السماء اللي أنا إذا دافعي دجال كاسي راجي مرو السود وحرت السود جاري مرنا وسير كيواد وكل حاجة على صلاة نقضي خساري سماء نجحتين لكن كل عدان وحور يسمي إذا أقولهم الله برضا الله برضا خسارة شيختين خسارة حب الشيخ ما في مال فله هذه ديو رقبة أنت أنا كورا إن أنت وياه ترى مكتوب بكره لكن كل خسارة بدن ولا بدن بني واجه ما يقدر مجاله وهذا مجال البورة وحول 16 كيلومتر فقد دربك يستدعى السوق يعني قال مركورة بورة لكذا قبل عمي أكيد ما ولا سوسة دادجي مركز ما ولا سلم نقضي يعني حبض والنوم مغرسي ليه حبض عراس يوحدمي يعني وأنا كريو أنا حبيت فكر إن لا يهدأ خسارة إن لما ضم خسارة لحالنا كمان وبينوش يعني لها كل اللي يجا كملها لو بالربع لكن ترى خسارها حقيقي ولا ما هي لكن حقيقيا لما هو ترى ولا يجوا معمولوا هذا ورايا أو نبغى نقول حسن لكن خسارة ما كنا عماشة. إسلام مركان وحلا بدلنا لا شيء جينا يسوي دار سنة يان ويسكر ديان مدافع علوس قوبتا يقريه الله يقام بيمك قوة صل شيء جينا يسببين خسارة ينفض دقدقة عيدان إلا بدلنا عيام موجينا يا إنه يشرح حالة ديار قرو دقال أو مركلا كقرحة دقان كاسي qoraal ka soo baxay maalintii khamiistii qaramada midoobay ayaa lagaga hadlay xiisada colaadeed ee ka taagan deegaanka Tuqanaaq waxaana labada dhinac ay isku hayaan halkaasi loogu baaqay in ay fuliyaan ballanqaadkii ay u qaadeen beesha caalamka ee ahayd in ay si degdeg ah u fulinayaan xabad joojin sidoo kalena waxa loogu baaqay Soomaaliland iyo Puntland in ay kala qaadaan ciidamada oo ay joojiyaan hadallada xanafta leh ay isku marinayaan warbaahinta warar kale oo la xaqiijin ayaa sheegaya in dhaxdhaxaadin iyo waawaan kale oo laga dhaxwada Soomaaliland Puntland loogu soo bandhigay in qolo kasta ciidankeeda dib ugu celiso halkii ay ku sugnaayeen dagaalka ka hor isla markaana masaafo 50 kilomitir ah ay u dhaxayso labada ciidan balse ilaa hadda labada dhinac midna kama hadlin arintaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hore u sheegay in aan cidna ku duulin iyagu hase yeeshee weerar lagu soo qaaday ciidankoodii wuxuuna mas'uuliyadda dagaalkaasi madaxweyne Muuse dusha ka saaray dowladda federaalka Soomaaliya isagoo xusay in aan marnaba kala hadlaynin arrimaha Tuqanaaq madaxweyne gaas balse ay kala hadli doonaan madaxweyne Farmaajo maamulka Puntland ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka ilaa inta ay dib u celinayaan ciidamada qaranka Soomaaliland halkii ay ka soo duuleen bartamihii bishii May ayaa dagaaladii ugu cuslaa ay ku dhexmareen deegaanka Tuqanaaq ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa Puntland kuwaas oo sababay khasaarooyin culus oo isugu jira dhaawac dhimasho iyo hub la kala qabsaday sidoo kalena waxa istaagay tan iyo maalintaasi isu socodkii gaadiidka iyo ganacsiga ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Puntland